Sharmaboy waxa uu marayaa inuu Quraanka ku heeso si aad faahfaahin u hesho sheergarey. Sharmaboy ayaa maraya heer uu hiisihiisa ku soo dhex daro kelmad ka mid ah kelmadaha Quraanka Kariimka qolkii Eebe. Hees uu dhawaan soo qaaday Sharmaboy waxaa ku jira ereyada heestaasi sharciga bara uu soo dhaafay alamtara oo ah aayad ka mid ah Quraanka Kariimka. Dad badan ayaa qiil u raadinaya alamtara inay tahay kelmad Carabi ah balse waxay ilaabeen in ay ka mid tahay aayadaha Quraanka Kariimka oo ah kelmad diini ah oo amarnaba loo isticmaali karin hees iyo wax la mid ah. markaas waxa Ilaahay uu ka waramayaa arrintaas. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka waramayaa marka Ilaahay markaas uu dhahay wala wallahi inta aysan hadaasku asla Ilaahay na soo dhahay asarkeena waro ay ku qowlayaan iyo inuu gaaranaya inama inta la samaayna kuna waxaan haynay naquudu inaanu dabaalanayno oo nalcabo aan ciyaarayno warshaka sheekay naga ahdo fasirna kama lahayn markii Ilaahay uu raqay waxa uu tiraahdaa daalimiintaas abillaahi alle iyo aayaati iyo rasuulkiisa miyaad kuntum ahaateen isaas inuu sidiisii warba Ilaahay aayaadkii alle iyo aayaadkiisa iyo rasuulka miyaad jeesjeestaa لا تعتبرونه إله عذر دارنا عليه عذر دارنا قد حقا كفرتم وكفرتين بعد إيمانكم إيمان فيه بعد ذلك قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلهي آياته سي رسولك سبا كل الاشياء صدع على سا كل الليليس صدع على كفتما يا مكوا صا آيات إلهي وحراعي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ها عذر دارنا وقالوا ذين xukunkiisii baa Ilaahay u sheegay ayadu waxay si cad u sheegaysaa arrimaha aqadiga iyo diintu inaanay lahaynba wax safaad iyo ku dheeldheel waxyaabo waxa jira dhabtooduna dhabtay dheeldheelkooduna dhabya gaalnimada kamida inaga waxa dhacda dadka qaarkood in diinta ay wax ka sheegaan tabatana wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa sheegayaa in arrintaasi iska kaftan u nahay waa dicaayad baahid wax iska bila macna waa tan Ilaahay ku eedeeyay tan munaafiqiinta lagu eedeeyay nafsuha waxa saweeyo waxay sheegaysaa qofkani inaanu iimaan jirin bay sheegaysaa waayo qofku shayga agtiisa ugu qaalisan kuma dheeldheelo kuma ciyaaro ha cudur daaranina waa gaalowdeen la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimaanikum gabagabada waa nooca qul waxaad ku tiraahaa nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam istahzi'u jas hada doonta wa amru tahdid أمر التهديد يعني وأمر يعني يقول له هنجبيه اسك جس وتوي هوشين اسك وتا محايل إن الله إلهي مخرج ما شيء متصو صار يوي شيء قاسو تحذرون أدنكو أتكدكتونتين وتكبقيسان ومحيتهاي وحقلبي إن كجر إن بنانك الله صور بيقوه إلهي بنانك صور بيقو دونا تاسوي وحد كبقيسان إلهنا إذن فضيحين دونا لكن جس اسكينا اسك وتا أساسا له هنجبي ولئن سألتهم هذه أيجي أدويديسه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولن دهان أو دهان وحيليهن إنما إن كلمة أنا كنا نقول حانهان نخوض كوا إسكد بالنا جي ونلعب إسكع عياري يعني كل واحد كسرها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبي الله ما إلهي هي وآياته إلهي آياته هي ورسوله إلهي رسول كيسي مياد كنتم أهاتين تستهزئون إنك جسجستا مريد عيار من أولم الجيدين جسجس حقيقة ياد الجيدين إلهي آياته سي رسول كيسات كجسجسين صلى الله عليه وسلم الله قوم مدليو إلا نفتود الدلن مدى يوهر سيدماهي ولا الوحان كفاري لها حدي أي سورة قلتهاي وعاد موقالك هيستاس لايك سارتي إن أتكلا لابتيد oo aad muujiso in aad uga xun tahay in kelmad alle hees lagu soo dhaxdaro dhanka kale faafi muuqaalkan oo sheergarey si uu u gaaro saaxiibo badan oo aan ku baraarugsanayn afka ku jira heestaasi oo lagu soo dhaxdaray si jees ahna lagu luqeeyay aayad ka mid ah Quraanka Kariimka taasoo ah alam tara